انت على قضبة كلا أجرين وعربا بل نينكا أتكشي كيريسان اللي محمد عبد الله فرماد نينكا ويا شعبك الصومالية إلى الدعوة هل كلمة أورونا مكو أركتين أفكيسة وحن بينا هين مكو أركتين أفكيسة طبعا كان بينود ما طبعا كان بينود نينكا نوشيغا ولي شعبك الصومالي لهالي كنا إلى الدعوة طبعا كان بينود qofka leaderka ama hogaanka beentu waa ka xaraan farmaajo waa madaxweynihii ugu beenta badnaa ee abid Soomaaliya soo mara hadii aad isleedahay isagaan been ka sheegayna toban kamida beenaha aan xad ka lahayn ee uu sheegay daawo waxaan idin sheegaynaa Soomaaliya muddo 4 sano ah inay ka hormarayso dowladda Afrika waxaan xaqiijinaynaa muddo 2 sano ah shabaab inaan dalka ka ciribtirno waxaana saaran oo tahay magaaladan aragtaan oo burbursan 4 sano gudaheeda inaan ka soo saarno magaalada ugu nadiifsan magaalada ugu qoxoyna ka soo saarno 4 sano joogaya mana soo sharaxayo nomination daba qaadan maayo jid la xiraay ma jiraayo oo la yiraahdo khilaafaad madaxweyne iyo prime minister ah dowladda waxay ballan qaaday khilaafaad inuusan jirin bismillahir rahmaanir rahiim waa afayeenkii shirweynaha beelweynta hawiye ee muqdisho ka socday gudoomiyaha golaha siyaasadda iyo horumarinta beesha saacad waa daahir cabdullaahi cali sow ninka fariintan idin soo diraya waxa la yiri beeraraad male nin waa iska dhigi kara anaa maamulo madaxweyne ka ah geeska Afrika iyo Afrikada dhan iyo qaaradaha adduunka oo dhan maxamed cabdullaahi farmaajo 10 beenood baan u haynaa 10ka beenood baa halka ku daawan doontaan shacabka Soomaaliyeed nooga qaadi doono maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xirtiisa saaxiibadiisu waa iska mataqaana waa amaani karaan beenti lagu yiqiin waa sheegi karaan qiyaali waa ku noolaan karaan maamulka Umar Finish maalin way tawaray soo saareen waxay dhaheen gobolka Banaadir laguma qaban karo shir aan fasax looga haysan ama isu imaad aan fasax looga haysan maamulka gobolka iyo hay'adaha amniga waxay noqotay beentoodii qiyaaligoodii waa kan maalin kasta shirka lagu qabsanayo dadku waa qabiilo ciidanna waa heestaan maalin way tawar bay soo saartay wasaaradda amniga ee farmaajo waxay tiri garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ciidan farmaajo iyo rooble ahayn iyo gudoomiyaha baarlamaanka lama gili karaan ciidan iyo hub maanta waa arkayseen ayagoo hubaysan ciidanku in diyaaradda afkiisa Xasan Sheekh Maxamuud ay ku soo dhaweynayeen marka warkii loo soo dhiibay mataqaana mooge la helow cashadiid iyo Axmed Qorqor iyo Guudlaawe iyo lafta garan warkii loo soo dhiibana warka uu ahaa qiyaaliga ah warkii oo rooble sheegay rooble la helow oo yiri ay mataqaana doorasha dalka ka dhacaysana waa hubla lama soo gili kariyo askar soo ma gili kariyo ciidan soo ma gili karaan garoonka diyaaradaha iyo shir laguma qaban karo magaalada Muqdisho qiyaaliga qof baa jecel qof baa mataqaana reexa markuu waxay ku maamaahaan in lagu xanta lagu xasuusta ka horeysa ina riyootan ina jiifato ka horeysa marka farmaajo waayihiisii ay ku jiraa 28 cisho u hartay 28 cisho beentiisa iska afuufo waa beentii dhaqanka uu lahaa waa qiyaaligii dhaqanka ay u lahaayeen waxba ha sheegaano in aqalka sare ay caasimadda Muqdisho ay ku yeelato matalaada ay mudan tahay World Bankiga bankiga adduunka uu nasiiyay dhaqaale deentii ugu horeysay oo Soomaaliya la siiyo burburka ka bacdi lacagtani deyn ma aha waa deeq weyn read my lips aniga ciidanka haddaan isku haleen waayay Soomaaliyeed oo aan tababaran waay 4 sano waa inta ugu sahlan ogow maxaa adiga nabadgelyo guud iyo shacab guud nabadgelyadiisa xagee ka keenaysaa adigii baa isku haleen waay ciidankii Soomaaliyeed waxyaabaha ay qarxiyeen haday yihiin hoteelo haday yihiin guryo inaan dhisno annaga ka masuula annaga ilaalin weyn nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino farmaajo ka hor intuusan madaxweyne noqon ma jirin siyaasi ka jeclaa in wax laga weydiiyo xaaladda dalka sababta hadda madaxweyne farmaajo uusan u hor imaan warbaahinta iyo fagaarayaasha su'aalaha lagu weydiiyo madaxda ayaa ah in wax kasta uu sheegay iyo ballan kasta uu qaaday ay been noqdeen waxa uu ku hadlana uusan aqoon waxa weeye maxamed cabdullaahi farmaajo afayeenka beelweynta hawiye ee kacdoon wadayaasha iyo shirweynaha hal kelmad buu leeyahay laba dhihi mayo
soomaali qabiil bay wax ku qaybsatay daarood baad kursiga ku matashaa waxaan ku weydiinayaa labada maamul goboleed daarood ma haysaa ma haya soo maaha jawaabtaada Puntland iyo Jubbaland waa maamulo daarood ay madax ka yihiin ma haysaa maya waxaad meesha igu fadhido waa doqonnimadayda iyo caydayda iyo liidnimadayda haddaa daarood gacan ku hayn yaad u tartamaysaa yaad matashaa yaad kursiga ku matashaa haram cad ma geyn kartaa Puntland haram cad ma geyn kartaa Jubbaland maya soo maaha jawaabtaada haddaba haram cad beledweynaha geyn kartaa ee dhuusamareeb soo maaha iyo baydhabo ha jawaabteeda helaysaa taa jawaab baa lagaa siinayaa warka Sangub baa hadda ka hor riwaayadii qabyo markuu jiray wuxuuna ku ruma yidhi hooyada imisaad siyaasati 20 kun sii asagoo hooyadayna markaasay tiri 2 kun waa hooyada asaguri war baa ka dambayn doona warka hooyadiina 20 sii hooyadana 2 kun sii wuxuu ku yidhi isu hadda farmaajo waxa aad falayso hawiye rag aqoon iyo cilmi ka badan baa ka dhashay rag wax fahmaya ka dhashay waxa aad afar nin oo hawiye ah intaad u soo taagta meel dheesha iska naacleeya hawiye way fahmi karaan aqligana ma laa waxayna qayb ka tahay bahdilka aad ku haysa hawiye Roble iyo Qorqor iyo Umar Finish iyo Guudlaawe miyaad dowlad Soomaali dhisaya soo macnuhu ma aha hawiya bahdilaho dameerada ka wata ay doqomadan ee halka ka nacliyaan soo ma waxa meesha u soo saajisay warkaasi waxa weeye war baa ka dambayn doona waxaan u sheegayaa ciidanka beelweynta hawiye ee nabad sugidda iyo booliiska iyo militariga ka tirsan iyo asluubta ee hadda lacagta ka qaata maamulka farmaajo waxaan u sheegaynaa 6 bilood mushaarkooda waa la diyaariyay howlgallada dhacaya amniga gobolka ee la wareegaa baa la doonayaa maamulka gobolka Banaadir baa la dhisayaa lacagti waa diyaarinay ha diyaar garoobaano ciidanku ha diyaar garoobaano waxa kale waa qiyaali waxa kale waa washwash iyo nashnash ciidanka galmudug iyo ciidanka hirshabeellana lacag aruurintii mushaarkooda lagu guda jiraa qorshahooda 6 bilood soo socto meel baa loo saarayaa inay diyaar garoobaan baa laga doonayaa shacabkuna diyaar garoobaan inta aan qodobada kale u gelin waxaan rabaa bal ninka aad ka sheekaynaysaan ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ninkan weeye shacabka Soomaaliyeed oo ila daawada hal kelmad oo runa ma ku aragteen afkiisa waxaan been ahayn ma ku aragteen afkiisa 10 kaambeenood ma 10 kaambeenood ninka noo sheegaa wili shacabka Soomaaliyeed la hadli kara ila daawada 10 kaambeenood qofka liidarka ama hogaanka beentu waa ka xaaraan farmaajo waa madaxweynihii ugu beenta badnaa ee abid Soomaaliya soo mara haddii aad isleedahay isagaan been ka sheegayna 10 kamida beenaha aan xad ka lahayn ee uu sheegay daawo waxaan idin sheegaynaa Soomaaliya muddo 4 sano ah inay ka hormarayso dowladda Afrika waxaan xaqiijinaynaa muddo 2 sano ah shabaab inaan dalka ka ciribtirno waxaana saaran oo tahay magaaladan aragtaan oo burbursan 4 sano gudaheeda inaan ka soo saarno magaalada ugu nadiifsan magaalada ugu qurxoon inaan ka soo saarno 4 sano joogayaa mana soo sharaxayo nomination daba qaadan maayo jid la xiraayo ma jiraayo oo la yiraahdo khilaafaad madaxweyne iyo prime minister ah dowladdan waxay ballan qaaday khilaafaad inuusan jirin in aqalka sare ay caasimadda Muqdisho ay ku yeerto matalaada ay mudan tahay World Bankiga adduunka uu nasiiyay dhaqaale deentii ugu horeysay oo Soomaaliya la siiyo burburka ka bacdi lacagtani deyn ma aha waa deeq weyn read my lips aniga ciidanka hadda isku haleen waay Soomaaliyeed oo aan tababaran waay 4 sano waa inta ugu sahlan ogow maxaa adiga nabadgelyo guud iyo shacab guud nabadgelyadiisa xagee ka keenaysaa adigii baa isku haleen waay ciidankii Soomaaliyeed waxyaabaha ay qarxiyeen haday yihiin hoteelo haday yihiin guryo inaan dhisno annaga maxay annaga ka masuula annaga ilaalin weyn nabadgelyadii dadka ku dhinta inaan magdhow siino farmaajo ka hor intuusan madaxweyne noqon ma jirin siyaasi ka jeclaa in wax laga weydiiyo xaaladda dalka sababta hadda madaxweyne farmaajo uusan u hor imaan warbaahinta iyo fagaarayaasha su'aalaha lagu weydiiyo madaxda ayaa ah in wax kasta uu sheegay iyo ballan kasta uu qaaday ay been noqdeen waxa uu ku hadlana uusan aqoon
haddii ay jiraan beena ka weyn 10kan fadlan nala wadaag qofka la idin sheegayo ee magaciisu maxamed cabdullaahi farmaajo uu yahay intaasaa ka runa wixii kale waa been shalay waxaad aragteen dad magaca sacad sheeganayo oo meelaha ka dhadhawaaqayo kula sacad baan nahay islaan oo daarooda qabo oo meelaha warwareegto oo dhaxalka aabaheedba boobtay oo leeyahay ubax tahliil iyo waxaad aragteen dad meelaha ka dhashdashle ninkaas meesha ka qudbaynaya arkeena madow ee qoorta dheer waa xirsimaar waa ninkan ka soo erra gaalkacyo looga adkaaday ninka kale waa ninkay marada soo dhacday gaalkacyo ka soo cararay ee ceeb la joogi waayey cabdinaasir jaamacseed baa la yidhaah waxa meelaha wareega arkaysiin waa raggan gobolka mudug ku soo jiminay ee maayirka looga soo adkaaday ee ceeboobay ee dadkeeda ay soo naceen ee hadda qaraxyada ka abaabula muqdisho ee fahad yaasiin la shaqeeya kuwaana sacad ma matelaan kuwa kale meesha farjiin aragtiina waa dad la soo qalday iyo odayaal mid $200 siiyo taariikhna sacad uma laha oo governar sacad baa la yidhahdaa waa qaran sacad waxa noocaasa ninkii la maxamed xuseen rooble lehelow mooga cashadiidna horaan idinkugu sheegay tolkayow iska dhaaf lehelow ree cabdiilo taageero kama haysto sacad waa ka sii jeesteen waa la ogaaday inuusan ba'na ahayn ta'na ahayn ninkaana hawiya kursiga ku matalaa cumar finishow la mid yahay qoorqoorow la mid yahay wax micnaaho kaloo dheeriya uu leeyahay ma laha ninkaasina waa la taliyey hadduu tala maqlaayo waxaan ku idhi walaalow lacagtii dhuusamareeb aad kala baxsatay iyo tii calaada aad kala baxsatay iyo tii glisson iyo tii bandiiraley tii gaalkacyaa nagula heestaa aruurinteeda ku mashquulsannaha waqti kale lama hayno maxamed xuseen rooble haddii uu wax ka qaban kara gobolka banaadir waa la joogaa haddii uu maxamed cabdullaahi farmaajo doorasho ka qaban kara gobolka banaadirna waa waa isla joognaa waxa dhacayaan idiin sheegayaa waxa dhacaya waxa weeye toddobaad soo socda garoonka iyo dekedda magaalada muqdisho gacanta farmaajoy ka baxaysaa waddada almukaramana ciidanka xoogaga wadaniyiinta gobolka banaadir baa dhegaya ciidanka labada shabeelle joogana waxa weeye howlgallo ballaaran bay fulinayaan iyo kuwa gobolka banaadir waxaan kaloo idiin sheegayaa meeshii laada galmudug axmed qoorqoor sii sheega maa inuu madaxweyne ka yahay anaa idiin xaqiijiyey cali guudlaawo rag baa loo xilsaa raggaasaa laga rabaa warni ka keenaan inuu af la yaqaano ku hadlo yaa laga rabaa howlgallaa dhacaya barnaamijyaa la wadaa shaqooyin baa la wadaa wax sharci darra ah cidna laga yeeli mayo wax sharciga ka baxsanna qof laga yeeli mayo reerkaa hawiyena xilligay jiifu jira lama joogo waxaa la doonayaa kacdoonnada bilaabanaya inay u diyaargarowdaan dalii dibad waxaa la doonayaa oon beelweynta hawiye weydsanaynaa inay mushaaraadka ciidamadu ay nala garab joogaan uusa askariga aan $200 lagu gumaysan intaa weeye ujeeddada daahir calasow wuxuu leeyahay habarqaba lagu sirmo halgamayaashii dalkiyo hankii shacabkaa dishe habarqaba lagu sirmo waxaan la hilmaami karin bulshada weli hadal hayaan halaagii sooba iyo halkaad qalbi dhagax dhigtee huha aan ficil lahayn miyaa qaran lagu hantaa waa may iska sheego lama kulmi karo lama yeeli karo garoonka hub lama geli karo ciidan sooma geli karaan doorashaan qabanaynaa iska sheego ha qof kasta meel fadhiista waa sheeg karaa gada waxaa ku gur karta ku gur ha daahir calasow ayaaba hadda afhayeenkii ah farmaajo teeta lahayn oo madaxweyne hore yahay ayaan jilibkiisu aasaynaa mardhow duu ilaahay yidhaahdo waxaas le waxbaa salag leh dhammaad baa dhici doonay bal ogaada waxbaa salag leh bal ogaada haa waxbaa salag leh bal ogaada dabasha geedaha mar ciyaarsiisay haabiqlays